maanta saxaabi animiga noo wada su'aalo ku bilaabmaya su'aashan qof walba Soomaaliya way ku socotaa kooran saaxiib magaalada aad ku nooshahay miday doonto ahaato Hargeysa Boorama Burco Jigjiga Xamar Boosaaso Kismaayo miday doonto ahaato magaalada aad ku nooshahay hadduu ka soo baxo bahalkaasna uu kugu sababo inaad noqotid dadku wax ka baqaya yacni si kale kuugu dhiga su'aasha dadna fahmin waxaa jira magaalada aad ku nooshahay bahalkaas dadku way ka cabsadaan inta ugu badan wayna neceb yihiin inuu soo baxo inta ugu badan laakiin bahalkaas ayaad waxa la noqotay rafiiq ama saaxiib jirkiisa kala yeelatay laakiin aad si kasana uma yeelin yahay jirkiisa oo aad jirkaaga inaad jirkiisa kala yeelatid ma doonin adoon u qasdin ayaad jirkiisa kala yeelatay asxaabtaadu way ka shakiyeen waxna ku maleynaa bahalkii tahay iyaguna waxay bilaabeen ku soo weeraraan iyagoo ku maleynaa bahalkii tahay haddaba ma iska difaacilin mad ka carriid midda kale aad waa jeceshay asxaabtaada haddaba asxaabi maanta animiga wuxuu ku saabsan yahay wiilkaasna dhacdadaas ay ku dhacaysa dhacdadaas asxaabtiisa suula tacaamuli doona si ay looga jawaabo ama yacni falcelintiisu say tahay ma asxaabtooda isagoo u baqaya ayuu ka fogaaday miyuu isdifaacay oo gabiga qoorta miyuu ka wada jaray xalqada animiga aad ku arki doontiin animigana labadii xalqo ugu horeysa maanta noo soo kulaaseeyay saalaajliga muuqaalka like saara kanaalka nagu soo biiro subscribe saara aad iyo aad waxaan iga mahadcelinayaa in bil gudaheed aan 2,000 subscribe yacni nagu dhaafiseen oo anaga 7k mareen 9k nagu gaarsiiseen 9k saxaabi hamigeenu ka sii wan yahay wana nagu gaarsiisaan 10k intaysan bisha lixaad aan la gaarin iminka inoo bilaabay animegeena xalqadeena koobaad ee animega maanta noo wado waa wiil loo yaqaan Rayto wiilkan Rayto loo yaqaan wuxuu ku jiraa daaha 20meeyada waana wiil miskiin oo wuxuu iskaga nool yahay nolol faqiira laakiin wiilka maalmaha kamid wuxuu tagaa meeshu ka shaqeynayna waxay ahayd meel lagula dagaalamo tanaaniinta ama bahalada kuwaasoo raba inay soo weeraraan magaalada markaas maalmaha kamid shaqadiisa loo dhiibo waxaana lagu yiraahdaa maanta waxa la soo dagaalamaysaa taniinka weyn ama daraaganka weyn kaasoo dhex jira godka waxaana laga rabaa inaad soo dishid taniinkaas ama daraagankaasina waa mid aad u halis badan waxaana rabaa inaad taxadarkaaga aad badisid asxaabtiisana wuxuu bilaabay inuu soo macasalaameeyo wuxuuna soo galaa godkii markuu bilaabay inuu dhex socdo ayuu waxa arkaa god kale oo ku sii jira meesha godkii markuu saa u soo galo ayaa wuxuu arkaa waxshigii indhihiisa iyo ama yacni wiilkii indhihiisa iyo bahalkii indhihiisa ayaa isku dhaca bahalkii markuu arko wiilkii waxa dhahay inuu aamuso saa u soo fiiriyo wiilkiina uu naxaa wuxuuna idhaahdaa hadday nolol kugu dambaysa mar dambana yacni kuma laabanaysid noloshii aad ku jirtay hadda ayaadna quusanaysaa cid kaa badbaadaysa ma jirto wiilkiina waxa dhahay inuu aad u cabsoodo oo gariiro jareeyo bahalkii markuu arko wiilkii seefta haysta oo diyaargalaysan oo raba inuu isaga kaw kaga siiyo ayuu wax bilaabay inuu ku qayliyo kadibna wuxuu bilaabay inuu wiilkii soo dhawaado wiilkiina cabsidiisii iyo dhididkiisii uu sii seeftiisiina uu isticmaali kari waayaa wuxuuna bilaabay inuu dib ugu yarbax dhaho bahalkiina waxa dhahay inuu wiilkii soo dhawaado kolba kadib markuu saa ugu qayliyo ayaa wuxuu bilaabay wiilkii inuu hal mar u af gashto oo wiilkii qaniino yacni uu jirkiisa dhan baabi'iyo daba wiilkii Rayto lagu magacaabay saas miyuu ku geeriyooday laa wallaahi wiilkii wuxuu isku bedelaa qalfoof wuxuuna noqdaa waxa yacni heykalo cadmiyo ka soo baxay iminka qubuuraha wiilkiina isku naxbiyeeyo inuu isku fiiriyo wuxuuna idhaahdaa waaxib goormasan isku bedeli markaas wiilku wuxuu ku fikiraa inuu hal mar ugu laabto noloshii hore ku noolaamay yacni magaalada ku laabto laakiin wuxuu soo xasuustaa in maalmaha kamid ay jirayeen qofkaasina uu lahaan waxaana qofkii hebel ahaa ee fadlan haydiina dadkuna ku lahayn waxaa tahay qalfoof xun oo wixshiya waxaana rabta inaad magaalada burburisid saalaajil qoortaan kaa goynina ugu dambeyn miskiinkaas qoorta laga gooyay oo xagaas masiirkiisa ku dambeeyay markaas wiilku wuxuu idhaahdaa isha cali ka laadlaada ayaa igu filan yacni aragti sheekadii ma garanaysiin dawacadii iyo waraabihii sheeko dheer weeyaane wuxuu yidhi wiilkaasi waan ku cibro qaadanayaa ninkaas qisada ku dhacday saalaajliga magaalada kuma laabanayo mana doonayo inaan ku laabto magaalada xaggan iska noolaanaya intaan arkayo balwehel ama qofii aamina wiilkiisoo iska dhex marmaraya meeshii godka ahayd ayaa wuxuu arkaa heykalo cadmi kale ama qalfoofka ama skeleton wuxuu bilaabay wiilkiinu soo weeraro oo skeletonku jajabiyo kadib wiilku wuxuu xasuustaa gabadhii girlfriendtiisa ahayd gabadhaasoo ku lahayd waxaa jira waxshigaasna hadduu hal mar qofka yacni uu soo weeraro uu qofku jirkiisa hore isku wada bedelay lafo saalaajliga waxa ku banaan hal shardi oo kaliya halkaa shardi ku soo ceshanaysa jirkaagana waa inaad qalfoofka yacni meelaha ka buuxo oo dhan aad wadalaysaa markii wiilku waxaasoo soo xasuusto ayuu wuxuu bilaabay inuu qalfoofo badan raaraadiyo qalfoof mid buu helaa kiina wuxuu bilaabay inuu qoorta ka gooyo kadibna kii maskaxdiisa ayaa waxa ka soo baxay dareere wuxuu bilaabay inuu soo nuugo oo kadibna dareerihu uu cabo markuu cabo wuxuu bilaabay jirkiisa xoogaa yar soo caafimaado oo hilib iyo jir soo yeeshaan kadibna waxaan arkaynaa gabadhaasna nin ayay mid wuxuu ku yiraahdaa waxaan rabaa inaan shaqada noocaas wiilka Rayto loo diray inaan qabto gabadhuna waxay ku tiraahdaa meesha shaqadaas waa shaqo aad u halis badan waxaa loo baahan yahay qof dagaalyahan wiilka Rayto loo yaqaano wiilka Rayto waxa uu inuu ka adkaan doonto wiilkii yar miskiinka Rayto loo yaqaani godkay ku xabismay waxna ma garanayo xitaa khubsigii ama furinkii ama roodhidii sida loo isticmaalay ma garanayo
wuxuuna bilaabay inuu yacni meesha iska dhex fadhiisto isagoo weliba quus dareemaya wuxuuna idhaahdaa inta nolosheeda ka dhiman ma sidan ay ahaan doonaa fariis ayaynu tirtiriyaa isagoo yacni murugaysan oo leh inta sannadood meeshan ku xidhnaan doono sida jidhkayga dib iigu soo laabtaan wiilkii isagoo wuxuu bilaabay in meesha ku rejo beelo oo iska fadhiyo seefihiisa iska dardaawado isagoo meeshiisaas iska fadhiyo ayaa wiilku wuxuu soo xasuustaa dhacdooyinkii soo maray nolosha quruxda badnayd ee ku noolaa wiilkuna uu farxaa xun idhaahdaa may meeshan isku dhiibi maayo waa inaan sii bilaabo dagaalkaygii iyo howlaygaan watay waa inaan intaa helaan masiirkaasoo dib iigu celinaya jidhkayga inuu caadi soo noqdo kadibna qalfoofo badan buu sii laalaayaa maskaxdooda ama dimaaqoogii ayuu wuxuu bilaaba dareerahooga in mid kasta isticmaalo markuu dareeraha mid kasta isticmaalo wiilkii jidhkiisa inuu xoogaa hilib yaroo kale soo yeesho kadib wiilku wuxuu bilaabay in xagaa uu ka farxo wuxuuna idhaahdaa hadda ayay iigu socdaan umuuruhu sidii aan doonayey waxaana helay furihii koobaad jidhkayga sidiisa caadigan kusoo ceshan lahaa wuxuuna badhacday wiilkii in rajo ou aad u farxo wuxuuna bilaabay inuu godkiis kasii dhex meermeero isagoo weliba rajadii weli soo gashay qalbigiisa oo nolosha dib ugu soo laabto oo aad u faraxsan wiilkii isagoo faraxsan ayuu wuxuu bilaaba godkiina ku dhex arko qoolis ama bahalo yaro akhtar ah baladaas wuxuu bilaaba inuu googooyo oo hilibkooga yacni uu cuno qaarna uu isticmaalo isagoo weliba ka helay awooddiisna waxaa dhahay inuu aad u sii korodho oo wiilkii uu xagaa ka helo rajo kale rajadaasuu ku badbaadayo ama uu naftiisa ku badbaadin lahaa xaggaasna wuxuu ka helaa quud idima tusi kara asxaabe yacni hilibkii waxaasuu cunay waa youtube waxaas ma ogolo been bala saaraya kanaal hore asaasna uu laga baangareeyey markaan waxyaabaha qaar idima tusi karaare ahaada kadibna wiilkiisoo godka ku jira ayaa wuxuu maqlaa qofkaasoo shashanqare waxna laynaya kadibna markuu afiiriyo wuxuu arkaa gabadhi loo yaqaano sooya kadibna uu farxaa wuxuu yidhaa sooya ugu dambeyn meesha timid laakiin iyadu aamini mayso inaan ahay wiilkii rayto wuxuuna bilaabay inuu gabadhii soo daba dhaqaaqo ka daba shaqeeyo yani meel kastoo aadaysa uu ka daba aado si uu arka bal gabadhu xalkay ku dambeyn doonto meesha ka bixi doonto laakiin gabadha iska socda waxa soo weeray skeleton wuxuu bilaabay inuu gabadhii ka awood bato oo uu usoo dhawaado isagoo dili raba ayaa waxa yimaada wiilkii rayto wuxuuna bilaabay inuu skeletonku labo kala jabiyo kadibna gabadhi wax ku tira yaa tahay dib iga bax kuma aqaanay markaas wiilku wuxuu kulaan waxaana rayto kadibna gabadhi wax ku tira waxaa tahay beenaale raytona wuxuu nin aad u jidhkiisu weyn yahay wuxuuna ahaa nin feere weyn oo nin dhisan ayuu ahaa wuxuuna ahaa nin aad u awood badan oo dadka dagaalyahanka ku fiican sinoo macquul u noqoto inuu skeleton la falfal noqdo markaas gabadhi wiilku wuxuu ku yidhahda ugu dambe waxaa la kulmay draagonkii weynaa mata ninkii aad ii sheegayseen saas laajigeeda ayaa anigu noqday bahal waxaa kaa codsanaya inaad aamintid oo inaan beesh kuu sheegin aamintid gabadha wax ku tiraada waan ku aamina ugu dambeyn rayto ayaa tahay laakiin waxaa isku daya inaan magaalada kasoo dhaadhiciyo oon aado yacni kusoo dhaadhiciyo dadka magaalada ku nool inaad adigu noqoto wiilkii rayto lafalafo isku bedeshay kadibna gabadha waxay aadaa gabdho kale waxayna bilaabay inay u sheegto warkii laakiin gabdhihii qaar ma aaminaan wiilkina wuxuu iska dhex noolaaday kaafigii ama godkii wuxuuna bilaabay inuu iska dhex warwareego kadibna gabadhi baa usoo laabtay waxay ku tiraahdaa wiilka waan kaa shakinsanahay saa laajligeed waxaad ii sheeg wax yacni caddaynaya inaa rayto tahay wiilkina wuxuu ku yidhaha lacagta kuu dhiibay ma lacag la iska soo qaadan karo ama meelaha laga qaadi kara miya lacagtii muqaamiriinta la qaadanay miyaysan ahayn kadibna wiilku gabadhi wax ku tiraa waa runtaa ee hadda maxaad u baahan tahay mase wuxuu ku yidhahda waxaad ii keentay dhar wanaagsan isku qariyo aad iyo aad ba u mahadsan tahay waxaana rabaa in magaalada kusoo laabto oon kashifo yacni waxyaabaata ah ee dadkan skeletonka isku bedela ayaa rabaa inaan noloshooda badbaadiyo saan loo dini iyaga dadkuna ay u malaynaya inay yihiin bahalo saas ayna qoorta uga jarayaan aniga ayaa ku cibro qaatay waana rumaystay kadibna gabadhi waxay tustaa qinaac yar ama yacni wejiga baalka lagu xidho wejiga wiilku xidhays dhaho laakiin wejigii baalka wuxuu bilaabay ku dhego oo yacni ka foqi waayo wiilkina wuxuu ku dhaha maxaad igu sheegi weyday in baalkan wejigan uu yahay weji sixir ah oo aan la iska furi karin kadibna gabadhi wax ku tiraahda wuu ku anfici doonaa maalin maalmaha kamid a eegaraa lahow haddana na mari magaalada waqti badan intuuna naga lumine wiilkina wuxuu ku dhaha waxaa tahay gabadha ugu wanaagsan nolosheeda la kulmo qof kale ima aamini lahayn laakiin adiga ayaa aaminay taas waa abaal weyn baan kuu haya adiga ee adigu waxba kuuma haysana mari kadibna waxay imaadeen magaaladii waxayna soo fuuraan faras ama gaari gacanka intay ku dhex jireen waxay gabadhi ku tiraahdo saas guubadashay iga sheekee bal wiilkuna wuxuu ku idhaahdaa daraagan markii ugu horreeye la kulmay ayaa wuxuu bilaabay inuu soo weero kadibna saasay isku bedelay ugu dambeyn waxay yimaadeen magaaladii wiilkuna wuxuu ku idhahdaa magaalada xoogaa cabsi ayaa ka yar dareemaya dadkana waxa ka baqaya inay iga shakiyaan laakiin gabadha waxay ku tiraahdaa may waxaasa ka biqin anigaa kaa hor istaagaya dadka anigaana ku difaacaya wiilkina wuxuu bilaabay inuu ka qanco kadibna gabadha soo daba dhaqaaqa ragga xaarisiinta magaalada ilaalina istaajiyo waxay ku idhahdaan adigu joog wejigaagana na tus wiilkina wuxuu isku daya in wejiga ka qaadsi dhowo laakiin wejiga wuxuu bilaabay inuu ku dhago ku idhaahdo wejiga waa weji sixir ay ku dhegan saa laa jira iga qalnay saaxiibayaal oo iga sii daayay magaaladan oo iska galayahay kadibna ragga waxay tijaabeen in wejigu ka furmayo laakiin wejigu markuu ka furmi waayay arkaan oo iska sii daayaan magaalada iyuuna soo gala wiilkii isagoo aad u faraxsan laakiin faj'atan gabadhu iskaga baabiiyaa yacni ka baabao ama locationka u bedelaa kadibna gabadhu wax bilaabay inay raaraadiso sababtuu bedelana waxay ahayd in gabadha nolosheeda khatar uusan gelin wuxuuna bilaabay in aada gabadhii geer friendis ahayd yacni marka hore saaxiib ahaayeen kadibna gabadhi markuu la kulmo wuxuu ku bilaabay ku tiraahdo yaa tahay adigu mase wiilku wuxuu ku dhahan waxaan ahay rayto kadibna gabadhi wax ku tiraahdaa
yaa maxaa tiri ma ray toobaa tahay warta ii waran bay ku tiraahdaa bas maxaa san iskugu bedesho yani iska sii qarinaysaa wiilkuna wuxuu ku idhahdaa waa sheeko dheer taasi laakiin iyadoo saa isla hadlaya ayaa labadii xalaqada saxaabaad xaggaas inoogu dhammaanaysaa fadlan haddaan nacjibin muuqaalka ilaa xalqadaha kale waa la soo dhaqsan doonaa yani waa isku dayi doonaa in la soo dhaqsado markaa fadlan muuqaalka like saara kanaalkana subscribe saara maca asalaama واشوفكم في حلقة جاية